walaalayaal markaa dhibaatada ay leedahay darteed ilaahay hadduu idmo subxaanahu wa tacaala waxaan wax ka sheegaynaa ahwaalaha iyo dhibaatooyinka qiyaamaha uu leeyahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha wuxuu ku tilmaamay ama uu uga digay dadka, markaasuu yidhi yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum, wardadow ilaahiina ka cabsada. waayo maalinta qiyaame ahwaasheeda iyo dhibaatada jirta waxa looga fagtoo lagu badbaado ayaa cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala. idan dadow ilaahiina ka cabsada. adduunku saan ma noqon doono, wax badana isbeddelaayo. inna zalzalata asaacati shay-un cadiim. saacadda qiyaame gadgadoonkeeda iyo ruxashada ay wadato waa shay cadiim buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. yowma tarawnahaa, waa maalin buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala aad arkayso tadhalu kullu murdicatin camaa ardacat, inay hilmaamayso naag walba oo wax nuujinaysay wixii ay nuujinaysay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. howlkaa iyo dhibaatada jira darteed naag walba oo ilma jilbaha u saarnaa oo nuujinaysay way hilmaamaysaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. watadacu kullu daati xamlin xamlahaa, naag walboo uurka wax ku waday waa dhigaysaa buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. howlka iyo dhibaatada iyo mashaqada jira darteed bannaankay u soo bixinaysaa. watara annaasa sukaaraa, dadkii waxaad arkaysaa inay sarqaan yihiin oo dad wareersan oo kale ay yihiin. wamaa hum bisukaaraa, ma wareersana, laakiin wixii sidaa ka dhigay wuxuu yahay walaakina cadaab allaahi shadiid. cadaabka ilaahay oo maalintaa jira ayaa mid shadiid oo adag markaa qiyaamahaas ayaa qof kastoo annaga naga mida sugaaya. ilaah subxaanahu wa tacaala hortiisaa la tegi doonaa. qof walbaa wixii uu sameeyaa laga xisaabi doonaa. qof walbaa wuxuu abaalmar u helo ilaah siin doonaa. dadkaa laba u kala qaybsami doona, fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir. intaanan u gudagelin howlkaa qiyaamaha iyo mashaqadaa iyo dhibaatadaa jirtaa, wax yar waxaan ka hormarinaynaa geerida iyo arrimaha ku tacalluqa iyo sida ilaah subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay ruux walba inuu u xayaato baxo. ilaahay kitaabkiisa munasalka waxa uu ku yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt, naf kastaa geeri ayay dhadhaminaysaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. naf walboo xayaato la geliyey ayuu ilaahay xayaatada ka bixinaa subxaanahu wa tacaala.